السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سمعت جمعة wanaagsan ayaan idin leeyahay meel kasta oo aad ku jimcaysateenba waana 19 bisha sagaalaad ee September sanadka 2025 muuqaalkan waxaan rabaa inaan idinku la wadaago Soomaali kale oo musuqmaasuq iyo xaditaan lacag malaayiin dollar ah lagu haysto oo shalay gobolka Minnesota dacwad lagu soo oogay. dadka dacwadda lagu soo oogay waa 8 qof laakiin 6 kamid ah waa Soomaali. haddaba dadkan imisa lacag ah ayay qaateen, dadka ay ka xadeen dad nugul ayay ahaayeen, dadkaasina maxay yihiin waan idinla wadaagayaa. baaritaankuna weli waa u socdaa, waxaa laga yaabaa dad kale in dacwad lagu soo oogo. arrimahaas oo idil ayaan idinla socodsiinayaa, balse marka hore soo dhawaa. waxaa jirtay bishii 7 ee hadda la soo dhaafay in 15keedii ay jiraan ilaa iyo 8 goobood oo isugu jira guryo iyo weliba goobo ay lahaayeen kambaniyo bixiya lacagahan Medicaid-ka intay ku biilgareeyaan dadka alcoholka intay la dageen qamriga iyo weliba daroogada marka laga soo dhaqo in guryo loo raadiyo loogu talagalay iyo weliba dadka baahiyaha gaarka qabo in guryo in loo raadiyo ahayd dadkaasi ama shirkadahaasi aysan guryo u raadin lacagahana ay u dirsan jireen Medicaid dowladda federaalka isla markaana lacagahaasi la siin jiray. haddaba baaritaankii bishii 7 lagu sameeyay guryahaasi iyo weliba goobihii ay iska lahaayeen shirkadahaasi dadkii iska lahaa qaarkood ayaa dacwadan lagu soo oogay. waxaa jirtay baaritaanku markii uu bilowday ilaa iyo hadda in ay jirto in ilaa iyo 115 adeeg bixiyaal ah oo shirkado kala duwan ah in laga joojiyay lacagihii la siin jiray, isla markaana hadda 120 baaritaan oo kala duwan ay FBI-da ay wadaan. laakiin arrintan waxaa la leeyahay barnaamijkan loogu talagalay la yiraahdo House Stabilization Services ama HSS oo wasaaradda ama waaxda caafimaadka gobolka Minnesota u qaabilsan ee HSS ayna loo marinayay Medicaid-ka in lacagahan ay arkeen mar hore musuqmaasuqan inuu socdo. waxaa la leeyahay 302 milyan lacag ah ayaa ilaa hadda la xaday oo maqan. marka waxaa muuqata in 12 milyan loogu talagalay barnaamijkan inay ku baxdo meelaha qaar. wasaaradda waaxda caafimaadka ee gobolka Minnesota u qaabilsan musuqmaasuqan ay aragtay 2023 laakiin ay sii waday lacagahaas inay bixiso ilaa iyo FBI-du ay bilaabeen bishii July in ay baaritaan sameeyaan. haddaba 8 qof ee dacwadda lagu soo oogay 6 kamida waa Soomaali, waxaana ay kala yihiin sida soo socota. 4 qofood oo Soomaaliya waxay iska lahaayeen shirkadda la yiraahdo Brilliant Minds LLC, waxaana lagu eedeynayaa inay qaateen lacag ka badan 2.3 milyan. 4taasi qof waxay kala yihiin Mukhtaar Xasan Aadan oo 30 jir ah iyo sidoo kalena Mustafa Dayib Cali oo 29 jir ah iyo Khalid Axmed Dayib oo 26 jir ah. kulay labadaas qof waa qaraabo sida ka muuqato, iyo sidoo kalena Cabdifataax Maxamuud Maxamed oo 27 jir ah. waxaa lagu eedeynayaa 4taasi qof oo Soomaalida ah inay xadeen lacag dhan 2.3 milyan. laba waxaa jirto aabe iyo wiil isdhalay oo Nigerian inay yihiin aan u malaynayo oo iyagana la kala yiraahdo Christopher iyo sidoo kale waxaa la kala yiraahdaa Emmanuel 62 jir waa aabaha, wiilkuna waa 32 jir. waxay iska lahaayeen shirkad ay ugu magac dareen Flatcare Inc. waxaana iyagana lagu eedeynayaa 2.3 milyan oo dollar looga shakisan yahay inay xadeen. waxaa jirta 2 wiil oo walaalaha oo Soomaali ah oo 2 kambani oo kala duwan lahaa oo iyagana lagu eedeynayo lacag ku dhawaad 3 milyan ama 4 milyan ku dhawaada in iyagana ay ku maqan tahay. labadan wiil waxa ay kala lahaayeen labada shirkadood oo kala yiraahdo Leo Human Services iyo weliba Liberty Plus LLC, waxaana lagu kala eedeynayaa in Asad Ahmed Cadow oo 26 jir ah isla markaana iska lahaa shirkadda Leo Human Services inay ku maqan tahay lacag dhan 2.7 milyan oo dollar. halka sidoo kalena wiilka kale ee la dhashay Anwar Ahmed Cadow oo 25 jir ah isagana iska lahaa shirkadda la yiraahdo Liberty Plus LLC 1.2 milyan ay ku maqan tahay. Asad waxaa la leeyahay lacagahaasi Kenya ayuu ku maalgashto guryo uga dhistay, gaarigan Mercedes Benz-gana waa uu ku iibsaday lacagahaasi. marka 5 kamida 8 qof oo la soo eedeeyay shalay maxkamad ayaa la soo taagay, isla markaana dambi ma lahin ay yiraahdeen. waxaana la yiri dadka kale ee kiiskan baaritaanku uu ku socdo amaba hadda dacwadda lagu soo oogay wax xiriira lama samayn kartaan. waxaa markaa jirta in 8daasi qof dacwadaasi kala duwan lagu soo oogay. barnaamijkan
waa gobolkii ugu horreeyay ayuu ahaa gobolka Minnesota oo bilaabo sanadkii 2020 isla in Medicaid ay dadka aan guryaha haysan sida homelesska, dadka drugska laga dhaqay iyo alcoholka iyo dadka aan laxaadkooda u dhameystiran baahiyaha gaarka qaba in guryo loo raadiyo Medicaidna ay lacagtaasi bixiso. Marka 2.6 milyan ayaa loogu talagalay, laakiin waxa la ogaaday in 2024 100 milyan ay kor u dhaaftay lacagaha loogu talagalay. Hadda sidoo kale waxaa jirta arbacadii gudoomiyaha gobolka Minnesota Tim Walz inuu wareegti ka soo saaray arrintan oo uu leeyahay waa in musuqmaasuqa lala dagaalamaa isla markaana kalsoonida shacabka dib loo soo celiyaa. Waxaana uu sheegay in dib loo eego laysinkana lagala laabto shirkadaha loo malaynayo inay qatar ugu jiraan inay musuqmaasuq ay sameeyaan, diiwaangelintana lagala laabto, golaha loogu talagalayna ay bishii mar kulmaan isla markaana xog isweydaarsi ay sameeyaan. Haddaba shalay waxaa ku dhawaaqay dacwadahan kusimaha xeerlaaliyaha dowladda federaalka u qaabilsan gobolka Minnesota Joseph Thompson. Marka hore waxa uu ka sheekeynayaa barnaamijkan sida uu ku bilowday iyo lacagaha loogu talagalay, isagoo arrimahaasi ka hadlayana waxa uu yiri. My name is Joe Thompson. I'm the acting United States Attorney for the District of Minnesota. We're here to announce the first round of indictments in the ongoing investigation of fraud in the Housing Stabilization Services State Medicaid program. The HSS program is riddled with fraud. The story has become all too familiar. Minnesota started the Housing Stabilization Services program in 2020. We were the first state in the nation to make this Medicaid benefit available. At the time, the program was estimated to cost approximately $2.6 million a year, but it quickly exploded. It grew to more than $100 million a year in Medicaid billing within just a few years. Hundreds of companies enrolled in the program and began claiming to provide housing stabilization services to thousands of clients throughout the state of Minnesota. Many of these companies operated out of dilapidated storefronts or rundown office buildings that were full of other fraudulent healthcare companies, such as the Griggs Midway building in St. Paul. Rather than being general healthcare or social services providers, many of these companies were devoted exclusively to billing the housing stabilization program. Joseph Thompson sidoo kale waxa uu ku dhawaaqay magacyada 6 qof ee dacwadda lagu soo oogay, shirkadaha iska lahaayeen iyo waliba koox waliba inta lacaga oo ay xadeen. Isagoo arrimahaasi ka hadlayana waxa uu yiri. Today we are charging 8 defendants for their role in this fraud scheme. 4 defendants, Mokhtar Hassan Aden, Mustafa Ali, Khalid Daib, and Abdi Fattah Mohammed, are charged for their role in carrying out a fraud in a company called Brilliant Minds Services, LLC, which is a housing stabilization services company run out of the Griggs Midway building in St. Paul. Brilliant Minds and its owners received more than $2 million in Medicaid billings based on their fraudulent claims to be providing housing stabilization services. Defendants Christopher and Emmanuel Falade are being charged for their role in operating another fraudulent housing stabilization company called Falade Care. Together, they received more than $2 million in Medicaid billing, purportedly for providing housing stabilization services. 2 additional defendants are being charged by information today. Assad Ahmed Adaw, the owner of Leo Human Services, is being charged for his role in the scheme. His company received more than $2.7 million in housing stabilization services payments. His brother, Anwar Ahmed Adaw, the owner of Liberty Plus LLC, is also being charged here by information. He and his company received more than $1 million in Medicaid payments for fraudulent housing stabilization services claims. All of these defendants and the others that we are investigating followed a similar scheme. They identified vulnerable individuals, Medicaid eligible individuals, many of whom were being released from drug or alcohol rehab facilities. They signed them up to receive housing stabilization services to help them, purportedly to help them find stable housing. And then they billed them for services
that they did not, or they billed Medicaid for services they did not actually provide. Despite the hundreds of millions of dollars in payments that have gone out from the state of Minnesota to housing stabilization services companies, most of these individuals did not receive the stable housing they so desperately needed. The money was just simply stolen. kusimaha xeraalyaha dowladda federaalka u qaabilsan gobolka Minnesota Joseph Thompson waxa uu sidoo kale sheegay in shakhsiyaadkan ay shirkadaha u furteen in lacagtan ay ku xadaan laakiin aysan u furanin in dadka adeega u baahan ay adeegaasi ay siiyaan isla markaana dad aysan adeeg siin ay dhahayeen adeegan siinay lacagahaas inay iska soo dirsanayeen waxa uu sidoo kale sheegay in kooxdan 8 qof ay tahay dadkii ugu horeeyay ee dacwada lagu soo ogo baaritaankana wali uu socdo bilaha soo socda iyo todobaadyada soo socdana ay jiri doonaan kuwa kale oo dacwada lagu soo ogo isla markaana loo maxkamadeyn doono koox sidii loo maxkamadeeyay dadkii ku lug lahaa kiiskii Feeding Our Future ee lacagtii loogu talagalay cuntada in lagu siiyo carruurta xilligii coronaviruska oo iyaduna la xaday marka waxa uu yiri baaritaanku waa uu socdaa walina ma uusan dhamaanin laakiin dadkan waa dadkii ugu horeeyay ee dacwada lagu soo ogo. Now this is just the first round of indictments in this case. Unlike in similar cases such as Feeding Our Future, we're going to charge this case in waves as we develop the evidence for individual defendants and companies. The plan is to charge groups of defendants and companies as their cases are ready for indictment. This investigation is ongoing and it's being conducted by agents from the FBI, Health and Human Services, OIG, and the IRS, along with the assistance of many other law enforcement agencies, including the Postal Inspection Service and the Minnesota Bureau of Criminal Apprehension. As I said, the investigation is ongoing and we expect additional charges to be brought in the coming weeks and months.